15 kilomitir u jirta deegaanka Tukaraq. waata bal ka waran xaaladda Tukaraq iyo xiisadan ka soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. meesha isku dagaaleen saaka ma garab waa tahay Somaliland waxa weeye Puntland waaga isku haleeleen xabaddu waa hadda ay istaagtay ma garab waa tahay ciidanka Puntland ay joogay oo xoolaha xaaladdu ciidankaas meesha waa laga qabsaday ma garab waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gawaarida laga guway waa kuwe ciidanka gawaarida laga guway waa ciidankii Jimcaale oo meesha joogay iyo kuwa xoolaha ka yimid dhankan madaxtooyada Puntland ka yimid oo meesha marayay dhabada waa tahay haddana Somaliland ma meesha haysato ma garab xilli may ahayd ama saacad may ahayd markuu dagaalku bilowday waa tahay ciidanka Somaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnaayeen waata dagaalku imisuu socday ay Somaliland ku qabsatay Tukaraq adigu deynta hadda riyaasaha way garanaysaa waqtiga aad soo wacay iyo waqtiga aad u sheegay inta u dhaxaysa iyadoo ay shaqada ciidanka Somaliland si toos ah yarka loo fuliyo waxa weeye informationka ama rasmaanti si toos ah militariga ma isticmaal macnaha ciidanka loo joogay wax yar baa ku filan wax inta laga wado wax yar marka adigu hadda rasmiga oo hay'ada waxa weeye ciidankaas weeyaan aaga faraga soo haysta wala kastankii wala Tukaraq wala budida wala dhagaxa aaga sida macalimiinta dadka ka tirada gurmadana anagu la hadalmayno hadduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan karaa ma ka warhaysaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka rayidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiriray waxa khasaare rasmi loo sheegi karo waad garanaysaa dagaal markuu dhaco ee laga warrabo khasaare macnaha waxa dhacay karo waxa weeye marka la information la bixin karaa xaaladda sida ay deegaanka ku soo gabagabeynayo ma jiraan haatan wax xiisada colaadeeda oo meesha ka socota ama gurmadyo labada dhinac soo gaaraya oo 15 kilomitir u jirta deegaanka Tukaraq. waata bal ka waran xaaladda Tukaraq iyo xiisadan ka soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland meesha isku dagaaleen saaka ma garab waa tahay Somaliland waxa weeye Puntland waaga isku haleeleen xabaddu waa hadda ay istaagtay ma garab waa tahay ciidanka Puntland ay joogay oo xoolaha xaaladdu ciidankaas gawaarida laga guway meesha waa laga qabsaday ma garab waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gawaarida laga guway waa kuwe ciidanka gawaarida laga guway waa ciidankii Jimcaale oo meesha joogay iyo kuwa xoolaha ka yimid dhankan madaxtooyada Puntland ka yimid oo meesha marayay dhabada waa tahay haddana Somaliland ma meesha haysato ma garab xilli may ahayd ama saacad may ahayd markuu dagaalku bilowday waa tahay ciidanka Somaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnaayeen wax kale hadda la sheego Puntland gurmada ka yimaado waxa weeye wax difaaco deegaanka ay difaacana oo rasmi hadda ilaa la hayo ma garab waa tahay dagaalku imisuu socday ay Somaliland ku qabsatay Tukaraq adigu deynta hadda riyaasaha way garanaysaa waqtiga aad soo wacay iyo waqtiga aad u sheegay inta u dhaxaysa iyadoo ay shaqada ciidanka Somaliland si toos ah yarka loo fuliyo waxa weeye informationka ama rasmaanti si toos ah militariga ma isticmaal macnaha ciidanka loo joogay wax yar baa ku filan wax inta laga wado wax yar marka adigu hadda rasmiga oo hay'ada waxa weeye ciidankaas weeyaan aaga faraga soo haysta wala kastankii wala Tukaraq wala budida wala dhagaxa aaga sida macalimiinta dadka haysta ka tirada gurmadana anagu la hadalmayno hadduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan karaa ma ka warhaysaa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka rayidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiriray waxa khasaare rasmi loo sheegi karo waad garanaysaa dagaal markuu dhaco laga warrabo khasaare macnaha waxa dhacay karo waxa weeye marka la information la bixin karaa xaaladda sida ay deegaanka ku soo gabagabeynayo
ma jiraan haatan wax xiisada colaadeeda oo meesha ka socota ama gurmadyo labada dhinac soo gaaraya دولة محانا في يرد بالله إلا الحبوبات تقال واسع قلنا وحوي لها دولتك وايدعان الفورميشي رسولها مدكري أطاقنا لغاية ولاد وحوي وحبصوا بيدي سؤالا دي وحبصوا بيدي